jira dadka Soomaaliya dhibaatada haysata inay ka baxaan ama xal loo helo ayay u soo dhaweeyeen farmaajo si ka duwan madaxdiisa ee ka horeysay waxa jira oo runta la rabo in loo dhaadhaco waxyaalaha khatarta ah oo Soomaali ku socda weli farmaajo ma uusan taaban iyo dawladdiisa midna waxaa ka mid ah bini'aadanka ama wadamada meelaha khatartu kaga timaado waxa weeye waa xagga nabadgelyada oo ay nabadgelyo dalka uu leeyahay midda labaadna waxa weeye dalku inuu dhaqaale leeyahay marka haddaan dhaqaalihii la taaban oo aan nabadgelyadii la taaban waxaan kaloo dhan albacad lagu lisabay noqonaya bishii 8 February oo la doortay dawladda cusub oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Ali Khayre ummadda Soomaaliyeed waxay u tahay maalin weyn oo ay u dabaaldegayaan sanad guuradii koowaad ee dawladdaas cusub ay dhalatay waxaan marka ugu horeysa ugu mahad celinayaa madaxweyne Farmaajo booqashadii uu ku tagay Puntland oo nabadeynta ahayd iyo tii uu ku tagay Galmudug oo ayaduna nabadeynta ahayd oo isdaba socday taa waxay dhalisay kalsooni ummadda Soomaaliyeed inaysan lahayn xuduud oo aysan qabiil la isku dagaalayo ayna jirin laakiin siyaasad xun oo dadka kala qoqobtay ay shacbiga kala hayo